xiisadii laascaanood oo ay saddexdii quwadood ee ugu waaweynaa Soomaalida isku aragti midaysan ka qaateen iyo shirkii garaadada dhulbahante oo fashil ku dhow xilli uu dhaafay waqtigii loo qorsheeyay ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee laascaanood iyo loolanka cusub ee xilligan socda dhammaantiin muuqaalkan like saara siina share gareeya falowna soo dhaha page-keena sida la socotaan dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay waxa si weyn isha loogu hayay waxa ka soo bixi doona shirka garaadada dhulbahante ee ka socday laascaanood kaasi oo dhaafay waqtigii loo qorsheeyay in laga soo saaro warmurtiyeed midaysan shirkan oo ay abaabuleen kooxo ka soo horjeeda Somaliland oo rabay in gobolka Sool ay Somaliland ka baxdo intaas kadibna lagu daro maamulka Puntland ayaa noqon waayay sidii ay rabeen waxana dhinaca Somaliland ka yimid go'aamo adag oo la xiriira si haynta gobolka Sool ayadoo ay qadiyada laascaanood gaadhay meel sare taasi oo keentay soo farageliyaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isku mowqif ka ah xiisada laascaanood kuwaas oo la aragti noqday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi siday noo xaqiijiyeen ila xogogaal ah oo ka tirsan madaxtooyada Djibouti iyo Villa Soomaaliya waxaa jira kulan ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Djibouti oo lagu lafaguray arrinta laascaanood iyadoo la isku raacay in gobolka Sool uu xad ahaan raacsan yahay Somaliland sidoo kalena ay gobolka Sool joogaan ciidanka ugu badan ee Somaliland kuwaas oo gobolka Sool u diiday inay soo galaan argagixisada caalamiga ah gobolka Soolna ka dhigay mid xasiloon sidaas darteedna ay waajib tahay in gobolka Sool uu ku jiro gacanta Somaliland ayadoo si wada jir ah loo xalinayo dadka tabashada ka qaba Somaliland sidoo kale warqad ka soo baxday urur goboleedka IGAD ayaa lagu xaqiijiyay in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu wado dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu xalinayo xiisada laascaanood ayagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin dadaalka uu wado madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kaasi oo doonaya xilligan in istimada ku sugan laascaanood iyo Somaliland ay ku wada hadlaan Djibouti halkaasna lagu dhameeyo tabashada jirta sida muuqata kacdoonkii laascaanood wuxuu yeeshay waji cusub kaasi oo si weyn u joojin doona inuu magaalada laascaanood ka dhaco gacan ka hadal ciidan waxaana hadda muuqata inay istimada ku shiraya laascaanood ku khasban yihiin inay wada hadalka iyo xalka aadaan oo ay ka tanaasulaan fikirkoodii hore ee ahaa Somaliland ha ka baxdo gobolka Sool kaasi oo hadda taageero waayay inuu fashilmana qarka u saaran sidoo kale Somaliland ayaa u muuqata inay aaday jiho ay ku xallin karto xiisada laascaanood ayadoo waqtigan heshay saaxiibo caalami ah oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan xallinta laascaanood waxaana loo arkaa madaxweynaha Djibouti inuu ku guuleysan karo xallinta laascaanood intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo arrimaha laascaanood